Asalaamu calaykum. Wuxuu leeyahay asteerka qisadeena maanta. Magacaygu waa Turkey, da'daydu waa 28 jir. Ilaa maalinkii aan naftayda bartay waxaan ahay qof nolosha wax hadafa ka lahayn, iska nool, mustaqbalna u diyaarsanayn. Waqtigayga ugu faraha badan ama guriga ayaan ku qaadan jiray ama dhalinyarada xaafadda ayaan jagtiinka la fadhiisan jiray. Asxaabtayduna da'dayda oo kale ayay ahaayeen. Ilaa laga soo gaaro ka bixidda dugsiga sare, waqtigaas ayaan ku baraarugay inaan weli diyaarsan jaamacadda aan gali doono iyo waxa aan baran doono, ama waxbarashada ma iska dayn doontaa oo shaqo ayaad bilaabi doontaa. Maalmaha ka mid a markii aan dugsiga sare dhammaynay anigii asxaabtayda waxa aan fadhinay jardiin. Qof kastoo asxaabtayda ka mid a waxa uu ka sheekeynayay waxa uu baran doono maadaama aan iskuulkii dhammaynay. Anigu sida aan idiin sheegayba weli ma diyaarsanin oo waxaan baran doono, laakiin waxaan maqlayay iyaga oo dhammaantood leh waxaan isdiiwaangelinaynaa askarnimo. Anna markaan maqlay waxa aan dhahay anna waa idin raacayaa oo askari baan noqonayaa. Dhowr maalmood kadib waxaa furmay isdiiwaangelinta ciidanka. Dhammaantayo waa buuxinay oo waxa aan sugaynay meeshii uu nasiibkuna geeyo. Alxamdulillaah dhammaantayo waa nala aqbalay, laakiin ma jiro 2 qof oo isku meel ama isku xero lagu qoray. Anigu waxaan aqbalaada ka helay amniga guud ee magaalada Riyaad. Kadib markii aan soo dhammaystay tababarkaygii ciidan, waxaan shaqaale ka noqday amni sugidda wadooyinka. Waxaan shaqada ka bilaabay wadada Saxaraha isku xidha bariga iyo galbeedka Sacuudiga. Dariiqaasi khaasatan habeenkii wuxuu ahaa madow una cabsi badnaa. Nasiib wanaag shaqadayda xilliga aan qabanay waxay ahayd habeenkii. Habeenada ka mid ah anoo shaqadayda ku jira oo gaadhiga kolba dhinac u wada. Saacaduna ay tahay 2 habeenimo, dariiquna cidlo uu yahay. Gaadhiyaduna ay ku yaraayeen si keliis ayaa dhanka midig u daymooday ilaa aan arkay iftiin gaadhi oo ka imanaya Saxaraha dhexdeeda. Iftiinkaas igama fogeyn aniga, yacni 100 ilaa 300 mitir buu ahaa, waana la arkay inuu iftiin gaadhi yahay. Waxaan isdhahay waa qof gaadhigu ka halaabay oo Saxaraha ku nuusta ama raba caawimaad. Dhankiisa ayaan u dhaqaaqay, laakiin gaadhiga iftiinkiisa marka aan u dhawaado wuu sii fogaanaya. Hadda anigu halkii uu joogay aaday, haddana masaafadii isma bedelin weli. Gaadhiga ayaa istaajiyay oon ka soo degay. Haddana waxaan arkay isla iftiinkii gaadhiga oo dhinaca bidix iga taagan. Anigu markaa waan shakiyay. Waxaan isdhahay ama yihiin mukhaadaraadka nimanka la baxsanaya, yacni kontrabaanka daroogada. Sababtoo ah meeshaan ka shaqeeyo waxay caan ku ahayd kontrabaaninta daroogada. Halka ugu munaasabsanaa waa inaan la hadlo taliyaha meesha haystay. Taleefankii ayaan qabsaday, waxaan u sheegay waxa aan arkay iyo inaan uga shakiyay inay yihiin tuugo daroogo. Wuxuu yidhi taliyuhu ii sharax waxa aad aragtay. Waxaan bilaabay inaan u sharaxo wax kastoon arkay. Markaan hadalkaygii dhameeyay ayaa waxa uu dhahay hadda ka soo bax meesha aad taagan tahay, kuna soo laaban lahayd waxa laga yaabo waxa aad hadda arkayso ee aad daba socoto inuu yahay jinka faanuuska. Wuxuu rabaa inuu kugu dhex lumiyo Saxaraha. Waqtiga anigu wax fikir kama haysanin jinka la sheegayo, laakiin markuu amar iga yimid taliyaha waan iska soo laabtay. Waxaana yahay faduul inaan ogaado muxuu yahay jinka faanuuska ee uu sheegay taliyuhu. Markii aan u laabtay laamida in yar ayaan soo wareegay, kadibna isla meesha ayaan ku soo laabtay. Waxaan mar labaad arkay iftiinkii markii hore. Halkaygii ayaan istaagay oo kama dhaqaaqin. Waxaan isdhahay meeshaada iska taagnow. Wax badan bay igama dhinayn inaan wareejiyo shaqada. 1 saac bas baa iga dhanayd. Markaasna waxay ahayd salaadii subax. Waxaan isdhahay iskaba sug inta cadceedu ka soo baxaysa. Iftiinka ka wardo wuxuu noqdo inuu iftiin gaadhi yahay iyo inuu yahay jinka faanuuska la sheegayo. Markii cadceedii soo baxday ayaa waxaan ogaaday in meeshii iftiinka ka baxay ay maran tahay oo uu gaadhi joogay. Waxaan ogaaday inuu run yahay hadalkii taliyuhu oo iftiinkaasi ahaa kii jinka faanuuska. Markii aan guriga kusoo laabtay waxaan bilaabay inaan baadho si aan wax badan uga ogaado jinka, si aan u ogaado sifaadkiisa iyo xilliga uu soo baxo, iyo si aan uga feejignaado mar dambe oo aan u dabagelin. Waxaan u maleynayay ugu horreyntii jin faanuus wato oo keliya oo dadka ku dhex lumiya Saxaraha. Laakiin markaan wax badan akhriyay waxaan ogaaday waxyaabo madaxaagu qaadi karin iyo inuu jinkaasi sababi karo dilkaaga. Waxaad dhahaysaa sabab. Aniga ayaa hadda idinka sheekayn waxa aniga helay midmid. Maalmaha ka mid ah sidii caadadayda ahayd waxaan hayay shaqadayda anigoo ku jira shaqadayda oo dariiqa taagan. Waxaa soo maray gaadhiyo fara badan ilaa 5 iyo 10 mid oo dhammaantood isku eg ama isku model ah oo isku u diyaarsan. Waxayna ahaayeen tiim safara. Waxayna weydiiyeen meel ii dhow. Waxayna rabeen inay ogaadaan inuu jiro waddo laami ah tagta ama inay Saxaraha dhex maraan. Waxaan u tilmaamay dariiqii, kadibna way tageen. Intaa wixii ka dambeeyay waxaan jeclaaday inaan galo tiimkaas oo kale. Waxaan dareemay inay naftu u baahan tahay safarro tiimam ah.
intaa wixii ka dambeeyey waxaan bilaabay inaan baaro tiimam safarada ah. Waxaan baaritaan wado kadib baaritaan badan waxaan helay tiim safar Sacuudiyaana. waan la xiriiray gudoomiyaha tiimka waxaan u sheegay inaan rabo inaan raaco. Wuxuu dhahay gudoomiyihii kusoo dhowo tiimka, laakiin waxaa ka mid ah shuruudaha tiimka inaad haysato gaadhiyada saxaraha iska xajiya ama saxaraha loogu talagalay. waxaan ku dhahay dhib malaha ii sheeg sifooyinka gaadhigaad rabtay, insha allah ana waan soo qaadan. kadib wuxuu iisoo diray 3 gaari oo leh sifooyinka. wuxuu dhahay 3 gaari keliya ayaa u adkeysan kara saxaraha. waxaan ku dhahay dhib male, laakiin 2 maalmood oo waqtigiisii si aan usoo qaato. waxaan haystay caadiyan gaadhiga aabahay oo shaqada ku aadi jiray. waxaan u tagay aabahay oo ku dhaab waxaan rabaa inaan gaadhi iibsado. aan anigu leeyahay aabahay wuxuu dhahay ilaahay ha kugu garab galo, laakiin gaari lacagtaad haysato u dhigma iibso. okay waan dhahay. isla markiiba waxaan aaday meesha baabuurta lagu gado oo waxaan tuso 3 gaari. waxaan ogaaday gaadhiga jiibka ah inuu yahay gaadhiga ugu jaban inaan iibsan karo. ilaahay ayaan isku xiray oo waan qaatay gaadhiga. kadib waxaan la hadlay gudoomiyaha tiimka oo aan u sheegay inaan soo iibsaday gaadhigii, diyaarna inaanu ahay inaan la safro xilli kasta oo aad diyaar u tihiin. ilaa xilligaan uma sheegin gudoomiyaha inaan askari ahay, isna igama waafaqin inaan ciidan ahay. almuhim wuxuu geliyey group WhatsApp tiimka, wuxuuna ahaa tiim diyaarsan dhan kasta oo shaqo fiican haya. safarada ilaa sanad sii diyaariyey, sanad kadib meesha la aadayo, xilliga la baxayo iyo xilliga lasoo dhamaysanayo. nasiib wanaag waxay ahayd safarkii ugu horreeyay 2 cisho kadib. safarkaasina wuxuu ahaa saxaraha Rubcul Khaali. hadafkeenu wuxuu ahaa siduu noo sheegay gudoomiyaha tiimka inaan tagno tuulada Sacbalooti la dhaho. tuuladaasna waxay aad ugu dhowdahay xuduudda Cumaan iyo Sacuudiga. waxaa jira hal wado oo laami ah, dariiqaasina aad ayuu u dheeryahay. marka laga hadlo meesha aan ka baxayno oo ahayd magaalada Daa'if, waxaa la soconayaa muddo 20 saacadood oo xidhiidha ilaa laga gaarayo tuulada. si aan idiin fahansiiyo anigu shaqadayda waa inaan 1 habeen shaqeeyo, kadibna 9 habeen ayaan fasaxay. nasiib wanaag safarkayga iyo waxaa kulmay fasaxayga, sidaa darteed ayaan u ogolaaday inaan raaco gudoomiyaha tiimka. hadalkiisuna wuxuu ahaa in safarkan yahay 6 maalmood oo keliya. almuhim dhammaantay waxaan isku imanay magaalada Daa'if oo safarkaygu ka bilaabmay. halkaa ayuuna bilaabmay gudoomiyuhu inuu tiimka noo qaybiyo taar ama turayo si aan ugu wada xidhiidhno meelaha bilaa-anteenada. bilaabay inuu noo sharaxo hab safarka. anigu maadaamay ahayd safarkii ugu horreeyay ayaan la galo tiimka, waxay igeliyeen dhexda. dad badanna mabaanaan ahayn, 7 qof ayaan ahayn, qof kastana gaadhigu watay. laakiin markuuna tusay khariirada safarka waan yaabay, sababtoo ah waxay ahayd halkii aan ka mari lahayn wadada laamiga inaan dhex jeexno saxaraha Rubcul Khaali ilaa aan ka gaadhino tuulada. wuxuu dhahay gudoomiyuhu tiimka waa wadada ugu dhow si aan u aadno tuulada. mid kasta oo annaga naga mid a shidaalkiibuu buuxsaday, waxyaabihii muhiimka u ahaana ee uu baahnaana uu qaatay. waxaan ka dhaqaaqnay magaalada Daa'if 12 duhurnimo. magaalada Daa'if waxaan kasii tegnay magaalada Wadi Dawaasari. intaa wixii ka dambeeyey waxay ahayd inaan dhex galno saxaraha. magaalada Wadi Dawaasari waxaan galnay 4 galabnimo. kadib intii aanan gelin saxaraha waan isu soo ururnay oo gudoomiyaha ayaa tijaabiyey taarka aan wadano, sababtoo ah marka aan saa u galno saxaraha anteenadu way tegaysaa. gaadhiga ugu horreeya wuxuu ahaa ka gudoomiyaha, sababtoo ah keligii ayaa wadada si fiican u garanayay, inteeda kalena waan ka dambeynay. dhexda ayaan inteeda kale ku jirnay. gaadhiga gudoomiye ku-xigeenkana uu u dambeeyay. si haddii qof wax u noqdo ama gaadhigu u xumaado isagu wuu arko. waan soconay ilaa ay habeen noqotay oo waxaan arkay iftiinka gaadhiga bes. 2 gaadhi ee kasta waxaa u dhexeeya masaafo 200 ilaa 300 oo mitir. gudoomiyaha tiimka ayaa ku jiray taleefanka, isaga ayaana noo sheegay kolba dhinaca loo leexanayo, midig iyo bidix. jawigu deganaa oo keliya waxaa la maqlay codka gudoomiyaha si kadis. waxaa la waayay codka gudoomiyaha ilaa 5 daqiiqo. marka anigu durbo waan cabsooday oo muraayada daaqada ayaan hoos u dejiyey. waanan huursanaa. isla markaan dejiyey daaqadii waxaan u jeestay dhanka midig. waxaan arkay isla iftiinkii aan habeenkii arkay. markiiba waxaan dallacay muraayada oo shaydaanka ayaan iska naaray. qur-aan oo aan akhristay. alxamdulilah gudoomiye tiimka ayaa kusoo laabtay koolka isagoo dhahay dhanka midig u leexda. dhammaantay waxaan wada daba dhaqaaqnay iftiinkii aan arkay. anna waxaan isdhahay hadduu gudoomiyuhu yidhi dhankaa u baxa iftiinka, kuley isaga idinka cilmi badan oo garanaya wadada. anigu maadaamaan ahaa qofka saddexaad waan cabsanayay oo dhanka dambe maba eegin. laakiin markaan masaafo badan jarnay muraayada ayaan ka fiiriyey hal gaadhiba ima daba socon. ma aqaan meelay aadeen dhalinyaradii daba socotay.
markii waxaan qaatay taleefanka taarka anigoo guddoomiyaha kula dhalinyaradii nama daba socdaan laakiin guddoomiyuhu iima jawaabin. Hal erey ayaa kusoo laalaabanaya codka taarka isagoo ay ahayd midigu leexda dhanka midig. Erey kale ma lahayn. Aniguna markaas waan cadhooday anigoo gaadhiga aad u waday ilaa aan hor istaago guddoomiyihii. Markaan kasoo degay anoo isla u sheegay in dhalinyaradii lumeen, marka ayaan ogaaday inaan anigu lumay oo aynan dhalinyaradu dhumin sababtoo ah gaadhigaan hor istaago wuxuu ahaa wiilkii labaad. Markii aan arkay iftiinkii ayaa wax kasta isbedelay. Halkii aan guddoomiyaha daba socon lahaa ayaan daba dhaqaaqay gaadhigii labaad oo isna luusan. Qofka kaliya ila socdana wuxuu ahaa Fahad. Waxaan ku dhahay anigoo Fahad la hadlaya, Fahadow malaha waxaa lagu ciyaarayaa taleefanka ama taarka guddoomiyaha. Waayo markaan la hadlaba wuxuu leeyahay midig dhanka midig u leexda. Fahad oo ooyay ayaa dhahay wallaahi ma ogin, laakiin xalku waa inaan ku laabanaa meeshii aan kasoo lunnay. Waa intaasoo soo helnaa dhalinyaradii hadda ay tafaasiyey anigii Fahad sida aan usoo lunnay. Fahad wuxuu ahaa qofka labaad ee ku xigay guddoomiyaha. Fahad waxaa sababay inuu wadada ka lumay inuu arkay isla iftiinkii aan arkay anigu, oo halkii guddoomiyaha dabageli lahaa iftiinkii dabagalay. Anaan isaga sii dabagalay. Nasiib darro aniga iyo Fahad waxaan jarnay masaafo 52 kiiloomitir. Anagoo daba soconay iftiin aanaan aqoonin wuxuu yahay. Fahadkuna wuxuu ahaa mid aad u fulay oo cabsi darteed u ooyay. Anna si aanan uga sii cabsiinin umana sheegin inuu yahay waxaan caawa dhan daba soconay jinkii faynuuska inuu ahaa. Waxaan ku dhahay gaadhiga fuul oo aan raacnay raadka shaaga gaadhiga ilaa aan ka helayna meeshaan ka nimid. Sidoo kale waxaan ku hadlayay taleefanka taarkii balse intaasuu guddoomiyuhu dareemaa inaad lunteen. Laakiin sidii hore unbuu lahaa guddoomiyuhu midig dhanka midig u leexda. Waxayna ahayd 11 habeenimo annaga oo daba soconnaa taayirka gaadhiga ayaa waxaan aragnay isla iftiinkii, laakiin midkan oo ka duwanaa marna uu shidmay marna uu damaayay. Waxaan u malaynay inuu yahay mid ka mid a dhalinyaradii oo tagay inaan maqannahay. Markiiba dhankiisa ayaanu dhaqaaqnay, laakiin nasiib darro intaan uga dhowaanin gaadhigii ayaa ciidda naga dhex galay oo dhaqaaqi waayay. Sidoo kale gaadhigii Fahadna ciiddii baa la degtay. Markaan kasoo degnay ayaa waxaan aragnay in rajo lagaga soo saari karo gaadhiga halkan. Gaadhigan iftiinkiisa arkaynay ayaa wuxuu ahaa gaadhiga Cabdalla oo kamid a dhalinyaradii nala socotay, isna sidoo kale ciiddu ku dhegtay. Hadda waxaan nahay 3 qof oo ku xaniban saxaraha, baabuurtiina ciiddu kanagaga dhegtay. Markiiba waxaan ku dhahay Fahad iyo Cabdalla ordo alaabta kasoo gurta gaadhiyada intayna ciiddu luqin. Qof kastana alaabtiisa ayuu kasoo gurtay gaadhigii. Waxaan dul fuurnay ciid dhisan. Waxaan dhahnay halkan ayaan ku sugaynaa ilaa subaxa inuu Ilaahay nala kulmiyo qof ina gargaaro oo meesha inaga saara. Waxaan shidanay dab xoogan lacala haddii uu qof soo maro agagaarka siduu u arko, laakiin nasiib darro 3 saacan meeshii fadhinay wax isbedela iyo cid noo timi ma jirto. Marka ayuu Cabdalla dhahay waa inaynu lugeynaa ilaa magaalada ka nimid ee Waalid Dawaasiri. Marka ayaan ku dhahay warniyo maxaa kaa khaldan, sideen ugu laaban karnaa magaaladii adigoo oga inaan lunsannahay. Aan ku dhex lunsannahay bartamaha saxaraha Rubcul Khaali, mana kala naqaano bari iyo galbeed. Shaydaanka iska naaro meeshaada fadhi. Fikirkii wuu ila qaatay Cabdalla. Cadceedda markay soo baxdo ayaan ku heshiiyey. Fahad baan eegay mise ugu hurdaa, aniguna waxaan hir anna waan seexan baan idhi anigoo dhinaca dhulka dhigin ayaa waxaan haddana arkay isla iftiinkii, laakiin marka mid qura maaha oo dhan kasta iftiin baa ka muuqda. Waxaan u soo jeestay Cabdalla anoo ku dhahay waa kaa jinkii faynuuska ayna dhumiyey. Hadalkii baanoo dhamaystirayo iftiinkii sii batay. Waxaan u maleeyay inaan guriga joogno. Daqiiqadahaas indhaha isku qabtay ayaan dhahay la xawla walaa quwwata illaa billah. Cabdalla ayay noqotay wuxuu bilaabay inuu ooyo oo qayliyo cabsi darteed. Waxaan ku dhahay warniyo intaas sida ciyaalka intaad ooyeyso Ilaahay xusuu shaydaanka iska naar oohinta waxbay noo tirmaysa xilligan. Daqiiqado kadib indhahan kala furnay wax iftiina waan waayay. Markiiba gaadhiga intaan fuulay ayaan soo qaatay taleefankii taarka waanan qabsaday bal inuu qof uun iga qabto ama ila hadlo. Markii ugu horreysay ayaan qabsaday taleefanka sidii marka hore unbuu ahaa midig dhanka midig, laakiin markaan ku celceliyey wicitaanka waxaan maqlay codka guddoomiyihii oo leh alxamdulilah dhammaanteen ugu dambeyn waxaan nabad nimid tuuladii Sacbalood. Waan yaabay anigoo isla sidee ayuu u dhihi karaa alxamdulilah iyadoo 3 qof halkan ay ku go'doonsay in ma dareemin miyaa maqnaashaayaga. Almuhiim intaa wixii ka dambeysay taleefankii taarka wuxuu bilaabay inuu codkii hore ku celiyo midig dhanka midig u leexo. Aniguna markaa waan moraal jabo. Waxaan bilaabay inaan qaylo iyo cay iskugu daro jinkii faynuuska. Waxaan dareemay in xagga dambe intuu igaga yimid i tuuray. Markaa wixii ka dambeeyey afkayga wax hadal kama soo bixin. Waxaan u tagay dhalinyaradii anoo u sheegay inay tiimkii gaadheen tuuladii ayayna tabinna inaan ka maqannahay. Haddana waxaan ku dhex lunsannahay saxaraha dhexdeeda, mana ogi inaan caafimaad ka baxayn iyo in kale. Hadalkii baanoo dhamaysan ayaa waxaan arkay Fahad oo ooyay isagoo leh aabbahay runta haddeenu sheegi lahaa ciilba ma qabo. Anna inta u jeestay baan ku dhahay maxaa dhahay salaamad.
wuxuu dhahay intaan tiimka soo raacin aabahay been baan u sheegay oon ku dhahay riyaad baan aadayaa haddii aan u sheegi lahaa inuu saxaaraha aan aadayo fasax ima soo siiyeen haddana waan ka qoomayn in aabahay been u sheegayo hooyadii waxaan bilaabay inaan dejiyo xaalka insha allah kheyr bay noqon doontaa waan bixi doonaa mid kasta gurigiisa isagoo nabad qabo ku laaban doonaa waxaan sugaynay intaa wixii ka dambeysay in adceed ku soo baxaysa alxamdulilah sugitaan dheer kadib adceeddii baa soo baxday markii waxaan u jeedsanay dhanka baabuurteedii waxaan arkay baabuurtii oo carradu sii dejinayso ama ay laqayso yacni dhowr saac kadib way qarsoomi doonaan wixii alaab noo saaran baabuurta waa inaan kala soo degnaa sababtoo ah waxaa dhacday inaan meesha waqti badan joogno waxaan bilownay inaan dejino cuntadii biyihii shidaalkii gaarigana waan iskaga durugnay si aan ciiddu annagana noola laqin muddadaas oo dhan waxaan tijaabinaya taleefonkii taarkii inuu hagaagay waxba ma hagaagin laakiin weli sidii hadalkii hore buu ku dhawaaqay cabdalla wuxuu dhahay maadaama adceed soo baxda aan daba socono taayirada baabuurta si aanu aragno meeshaan ka nimid waxaaba dhici karta tuuladu inaynay naga fogeyn anna waxaan ku dhahay ka waran haddaysan tuuladu dhoweyn dib malaha muhiimadu waa inaan dhaqaaqno inuguwan markaan arkay in cabdalla ku indha adigay inaan dhaqaaqno faadna sidoo kale waxaan dhahay bis khalaas ina mariya laakiin mid kasta waa inuu cunto iyo biyo ku filan soo qaataya waxyaabaha u muhiimsan taleefonka taarkana waa inaynaa soo iloobin anna waxaan qaadayaa shidaalka si haddii ay mugdii noogu noqoto iyo habeen aynu geedaha ugu shidano iyo xaabada markaan raadkii taayirada qaadnay oo aan soconnay muddo kilomitir hal kilomitraan ku qiyaasay ayaa waxaan hal mar weynayba raadkii aan daba socon waxaad moodaa inuu qof baabiyey si aan u fadhino halkii oona naga bixin isqabqabsi iyo dagaal dheer oo aniga cabdalla la dhex maray waxaan kadib xaalku markuu degay waxaan kusoo laabanay meeshii baabuurta joogeen een markii hore ku xaniibnayn 3 jiho ayaan u kala dhaqaaqnay si aan u raadino wax raja ah ilaa dhulka madoobaaday oo habeenkii labaad nagu soo galay cabsidiina way nagu soo siyaaday oo ilaa hadda waxna soo raadiyay malahan samirkii ayaa naga dhamaaday aniga iyo dhalinyaradii sidoo kale waxaan ka baqaynaa inuu biyaha iyo cuntadu naga dhamaato oo aan gaajiyo oonu dhimano almihii markaan cuntaynay kadib waxaan u dhaqaaqay inaan soo xaajo guddo meel ka fog dhalinyaradii ilaa aan sikadiisa uu iga soo horbaxay isla iftiinkii laakiin markaan aad ayuu igu dhowaa ilaa aan garto inuu yahay jinki faynuuska umana malaynin sida inuu egyahay markuu ugu horreysay aan maqlay jinka faanuuska waxaan haystay jin faanuus gacanta ku haysta laakiin markaan u dhawaaday ayaan arkaan isku naxay sida bili-aadanka ayuu ekaa oo lugu gacmo buu lahaa madaxiisa dhan ayaa sida faynuuska u samaysnaa oo iftiimay mana fiirin kartid iftiinka kasoo baxaya oo indhaha kuma xamilayaan 1 second indhaha waan ku han waayay laakiin irbiliqsiyadii aan eegay ayaan ku arkay gebigiisiiba indhahaan isku qabtay oon kala qaaday waxaan waayay isla markiiba dhalinyaradii ayaan kusoo laabtay oon u sheegay waxaan arkay waxaan ugu dhahay waa inaan meesha ka tagnaa haddii aan ku lulno saxaraha dhexdeeda muhiimad waa inaan meesha ka dhaqaaqnaa waa guri jin almuhim meeshii waan ka dhaqaaqnay anigu waxa igu muhiimsan wuxuu ahaa taleefonka taarka laakiin nasiib darro Fahdi iyo Cabdalla way iloobeen oo meeshay kaga tegeen in yar aan hore u soconay waxaa sikadiisa u shaqeeyay taarka markii ugu horreysay cod la fahmi karo ma ahayn laakiin markaan u fiirsaday waxaan maqlay qof dhahayo kusoo laabta meeshii aad joogteen waan isku naxay anigoo yaaban oo dhahay talo waayo qofka yaqaana meeshaad joogteen waxaan soo jeestay Fahdi iyo Cabdalla anigoo ku dhahay aawa taarkiin waxayna dhaheen waan soo iloonay meesha maan kaga nimid markaasan ayaa ogaaday qofka ila hadlay inuu ka mid yahay jimankii kadib xadhiggii ayaan taarkii ka saaray oon jeebka gashaday socodkaygina waan sii wadinay ilaa aan socon kari weynay daal dartii waxaan is dhahay waan nasanaynaa ilaa adceed soo baxdo markii ay soo baxdo adceed anigii Cabdalla markii waan kacnay laakiin Fahdi ayaa kici waayey waxaan u fiirsaday wejigiisa oo daal iyo xanuun fara badan ay ka muuqdaan waxaan ku dhahay maxaa ku helay wuxuuna yidhi waxaan soo iloobay irbadii sonkorta naxdin darteed waan kici kari waayo mabaan ogeyn inuu sokor qabo saasay tahay masaafo badan ayaan soo geynay oo meeshii baabuurta yaaleen kuma balaaban karno sidoo kale haddaan ku laabanno maba garanayna meel ay naga xigto khalaas hadduu qaadan waayo irbadda Fahad xaalkiisu adkaanay waxaana dhici karta inuu u geeriyoodo waxaan aada uga sii xumaaday in Cabdalla wax naxariisa inay ka muuqan qalbi adeeg wuxuuna dhahay war turkii naga wari aan iskaga tagno anigii naxdin maxaa kaa khaldan sidee walaalka xanuunsan saxara uga tegi kartaa wuxuu dhahay yaa ku dhahay walaalkay war xataa adi walaalkay matiid kumana aqaano bilowgii haddaan ogaan lahaa inaad tiimkan fashilka aad soo raacaysay indibaba soo raacin markuu intaa dhahay ayaan shaydaanka iska naaray oo waan aamusay Fahad ayaan ku dhahay haddii aad qaadan weyda irbadda maxaa ku dhacay wuxuu dhahay insha allah dhib malahan khayr bay noqonina mariya haddana almuhim dariiq ayaan ku laabanay sidoo kalena waxaan isku xidhiidhiyey xadhiggii taleefonkii taarka markii ugu horreysaan qabsaday taleefonka waxaan maqlay codkii guddoomiyaha markiiba
indhahay ii sheeg meeshaad joogtaan. Aniguna farxad darteed waan ooyey. Anigoo ooyey ayaan waxaan ku dhahay ma garanayo meel aan joogno. Wuxuu igu dhahay guddoomiye waxaa jira batan cas oo taarka halka dambe kaga yaala mashaq meeshaa qabo annaga ogaanayna oo xadidayna meesha aad joogtaan imana. Wuxuu dhahay guddoomiyihii meeshiina fadhiya ugu yaraan waxaan u baahnaa 12 saacadood si aan idii soo gaadhno. masaafada meeshay joogeen iyo meeshaan joogno udhaxaysay waxay ahayd 210 kilomitir oo saxara. waxaanan fadhinay isla meesha 8 aroornimo ilaa wax yar kahor salaada maqrib. alxamdulilah ugu dambe waynoo yimaadeen farxadeeda lama koobi karin. waxaad u malaysaa in nolosha dib igu soo laabatay. laakiin mid kamid a tiimka ayaa weli lumsano. guddoomiye wuxuu haystay inuu anaga nala joogo. hal muhiim wuxuu dhahay guddoomiyuhu waa inaan caawa halkaas seexanaa si aynu u lumin mugdiga intuu jinku faynuusku haddana isku keentusin aynan mugdiga ugu dhex lumin. waxaan dhisanay taandho. markaan ilsanay ayaan ku dhahay guddoomiyaha niyo waxaan maqlay adigoo alxamdulilah dhammaanteen waa nabad nimid tuulada lahaa yacni namaad tabin inaan gaalunay. wuxuu dhaamay walaahi nima tabin. marka aan gaariga waday waxaan idinka fiirinay muraayadhaadka oo lixdiina gaariga iftiinyadooda waan arkay. waxaan u haystay inay daba socotaan dhammaanteen. laakiin markaan gaariga ka degay ayaa waxaan arkay in 2 gaari bas ay daba socdaan. markaasaan ogaaday inaan bunteen oon arkayay iftiinkii jinka. intaa waxay ka dambeeyeen waan seexanay. mid kasta oo naga midana haa u seexday. 1 saac waxaan dhanay intaan warinay waxaana soo toosay codka durbaan la tumayo weliba aad noogu dhow. dhammaan dhalinyaradii way ila maqleen alxamdulilah. codkii taandhada ayaan dib uga soo baxnay si aanu eegno codku meeshu ka imanayo. codka waxaa u soo baxay isla meeshii aan ka nimid baabuurteedii yaaleen. waxaan kaloon aragnay dab aad u badan oo ka iftiimaya ama ka shidnaya meeshaan ka nimid. guddoomiyihii ayaa yidhi shaytaanka iska naar oo iska seexda. aroorta ayaan eegaynaa baabuurtiinii barinaan hagaajin karno iyo in kale. subaxdii markuu waagu bariyey alaabteedii oo ursanay waan qaadanay. waxaan aadnay meeshii gaariyada yaalaan. laakiin waxaan aragnay 3 gaari oo la gubay oo isku basbashay. xalay iftiinkaan arkaynana ahaa baabuurteedoo la gubay. guddoomiyihii ayaa yidhi khalaas dhib malahayna bariya dhulka intuuna nagu madoobaan. waxaanu dhaqaaqnay dhanka magaalada waadi dawaasire. alxamdulilah maqrib ayaan galnay magaalada. laakiin fahad ayaa xaalad xun ku jiray. markii aanu galnayba dhakhtarkaanu la orodnay. aabihi ayaan wacnay oon u sheegnay wax kasta oo dhacay. laakiin nasib darro aabihi nama rumaysan. waxaan sugaynay intuu fahad kasoo toosay si uu noo kala furto. laakiin fahad xaaladda kusii adkaato oo 2 cisho ayuu waxa weyn qolka ICU-da uuna dhintay. inta wax ka dambaysa ilaa naxariisto. aabihina wuxuu dhahay idinka dilay wiilkayga oo waana la xiray. inkastoo dhakhtarku uu sheegay inuu dhintay sonkortiisa oo hoos u dhacday. inka badan 40 cisho ayaan jeelkii ku jirnay. intaan jeelka ku jirnay waxaan ka fikirayay shaqadaydii iyo waxa laygu samayn doono. markiina la soo daayay waxaan kusoo laabtay magaaladeydii Jidda. xaafadeydii ayaan imi. inkastoo ogaayeen xaalkayga xaafadeeda oon taleefonka ugu soo sheegay oo aabbahay maalin kastay soo wici jiray intaan jeelka ku jiray. aroornimadii markuu waagu bariyey waxaan aaday shaqadeydii. laakiin nasiib darro waa laiga soo eriyey sidaan filayay bay noqotay. sheekadaas waxay igu dhacday 2019. 2 sano kadib 2021 waxa ay soo gaadhay war ah in wiilkii nala socday tiimka ee la weysanaa isaga oo miida laga helay saxaraha dhexdeeda. isaga oo ciid u qarisay isagiyo gaarigii uu watayba. ilaahay ha naxariisto. intaa wixii ka dambeeyey